السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر داوديال برنامجك حكمال وهبين كستا إذا كجي ماذا سجالك في النمو ستارتي في حالنا أنا كلنا هاي لندن عاوا وحن وكهد دونا عديل هاي نوع قلاده ورئيسي أنا ليا لندن محمد هارون بيحي نين كصوب حي سياسة عند علاقات كدولية جامعة دابي كنت على يوكي يولبا هرمرينتا دنيا الصدحات waxa uu aad iyo aad uga faaloodaa maxamed haaruun siyaasadda guud ama siyaasadda dibadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa uu faalooyin badan ka qoraa arrimaha Soomaaliya laakiin wuxuu aad iyo aad uga hadlaa arrimaha dibadda ee Somaliland isagoo waliba baaritaankiisii qalin jabinta ku soo dhameystay suurgalnimada inay suuragal tahay in kale aqoonsiga Somaliland waxa kale oo uu ahaa maxamed haaruun xogayaha arrimaha dibadda ee xisbigii UCID labadii kun iyo 12 laakiin uu iska casilay bal insha Allah taala waxaan dooni doonaa inuu caawa bal wax badan ka faaloodo sida ay siyaasadda dibadda u socoto Somaliland ku soo dhaw maxamed haaruun oo markii ugu horeysay ma filaya idacagaha ku timi xarunta aanu ku leenahay Star TV telefoon kooda hal jirna ku soo dhaw maxamed aad baad mahadsantahay Cabdiraxmaan adiga iyo daawadayaashaadaba aad iyo aad baan u salaamayaa iyo shaqaalaha TV-gan Star aadna waan ugu faraxsanahay inaan caawa idin yimid وين اسكو قدقلنا إن سؤاليها أنكو قد دياريي إن بالكتش جوابته إن شاء الله تعالى إن وحن اسكو بلعبين دونا سؤاله إن بالمركو جوه الرئيس وحن على يصلنا إن النظورة حالة دقود سومالي لان مرات هاي قف آدي آد وقد تعلق يعني آدي آد وقد تعلق شيء إنه وحكا آخريه وحي أدون كقرآن وحي يجي جدوه دو إسكا قرآن سومالي كسروا محمد حالة دقود سومالي لان الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين xaaladda guud ee Somaliland wax marta kelmad iyo laba lagu koobi karo maaha oo su'aasha jawaabteedu hadii la israado si faahfaahsan uga jawaab barnaamijka oo dhammaan way qaadan kartaa inkastoo hadba sida loo dhigo ku xiran tahay haddaan si soo ururiyo Somaliland meel nabada oo dawladda ka jirto oo maaragtay nabada yaan oran guud ahaan nabada sababtoo gobolada bariga shaqooyin ka jiraan gobol inta badan nabadgelyo maamul iyo administration ay dadku dhisteen iyo nidaam ay dadku dhisteen ay dadku ilaalinayaan uu ka hana qaado ka shaqeynayo weeye waa meel 20 sano ay dadku ka shaqeynayeen inay dhibaatadii iyo dhaawacii dagaalkii ka dhashay lagu halaagmay statenkii ay ka soo kabtaan wax badanna laga qabtay waa meel shacabka jooga ay aad iyo aad u dadaaleen laakiin dhinaca kale waa meel siyaasiyiintii bulshada aspirationkooda iyo rabitaankooda xaqiijin lahayd ay aad iyo aad uga gaabinayaan waxa shacabku doonayay sida shacabku wuxuu doonayay suu diyaar u yahay ay aad iyo aad uga gaabinayaan marka Somaliland hadii ay dhaliil ka jirto waxaan isleeyahay dhaliil siyaasiyiintu ay koos gareeyeen ama ay sabab u yihiin ayaa ka jirta laakiin waa meel guud ahaan dad nabadda jecel oo in dawladnimo helaan ay dawladnimo ku noolaadaan doonaya ay joogaan maxamed aad baad ugu mahadsantahay xaaladda guud saad sheegtay laguma soo koobi karo wax badan runtii laguma soo koobi karo laakiin waxaan doonayaa bal inaad su-aasha ugu muhiimsan doonaya waxa weeyaan adigu waxaad ahayd xoghayihii arrimaha dibadda ee xisbiga UCID dalkii waa tagtay marka hore siyaasadda horta waad baratay sida adduunku bal uu u xidhiidho cilaaqaadka duwaligu sida cilaaqaad loo yeesho ayaad baratay dalkiina waa tagtay maxaad is leedahay in amba mucaarad ha noqdaan amba dawlad ha noqdaane qaab ayaa jira aanay ilaa iyo hadda aanay ku guuleysan inay sida adduunku u dhaqmayaan bal aanay fahmin bal ku soo dhaw waan dhowhay walaal waa su'aal aad iyo aad muhiim ah wadankana intii aanan tagin de waxbaan ka qoray oo maaragtay research maaragtay muddo sanada aan waday aniga nimankii supervisorkii ahaa jaamacadda UDN oo wadankeena iyo dadkan dhulkan degan ku saabsan ee Somaliland iyo qadiyada aqoonsiga ayaan sameeyay markii dambe wadankan tagay oo nidaamka siyaasiga ah ayaan dhex galay political establishmentka wadanka ka jira taasina waxay ii suurtagelisay inaan maaragtay nidaamku sida uu shaqeynayo soo fahmo maaragtay inkastoo xisbi ka tirsanaa haddana maaragtay xisbiga kaliya kuma koobnayn nidaamka meesha ka jira oo dhammaan dhex galay dawladdan la kulmay xisbiyada kale aan la kulmay dawladdii hore aan la kulmay marka laga yimaado riyaale oo ay suurtagelin inaan la kulmo haddana dadkii dawladdii hore ka koobnaa oo dhammaan la kulmay oo maaragtay madaxweyne ku-xigeenkii ugu sarreeyay iyo wasiiradii dawladdii hore iyo tiimkii wadanka soo hogaaminayay 8 sano ee ka horreeyay Siiraanyo dawladda imkana waan la kulmay waxa iga soo baxay meeshii waxa weeyaan aniga dhinacan ka joogsaday in runtii
dowladda iyo xisbiyada iyo farta isku fiiqfiiqaano maaragtay dowladda iyo nidaamka siiraanyo ayaa aada loo dhaliilaa. xisbiyadu maaragtay farta aada ugu fiiqaan. dhaliilaha ay sheegayaanna waxbaa ka jira sida runtii ah, laakiin anigu waxaan kusoo arkay in dhaliisha ay dowladdu leedahay mid equal ahoo lamid ah ay xisbiyaduna leeyihiin. siyaasiyiinta waddanka joogta ee aan maaragtay xisbiyaba ka tirsanayn iyo kuwa xisbiya ku jira iyo kuwa dowladda wada intuba dhaliil isku mid ah ay leeyihiin oo ay ka gaabiyeen mujtamaca inay jiho sax ah u hogaamiyaan. weliba arrimaha guud ee dowladnimadu way fara badan yihin oo way qeybo badan yihiin oo maaragtay ma ka hadlayo maaragtay arrintan farta ku fiiqaya arrintii kusaabsanayd maamulka iyo sidii dadka nolol loogu samayn lahaa, dhaqaale looga abuuri lahaa ma aha. musuq maasuq iyo maamul xumada sidii loola dagaalami lahaa, loo improve lahaa ma aha. arrinta ugu daran waxa weeyaan aan soo arkay ay gaabiska ka yihiin waxa weeyaan wixii ku saabsanaa balqadiyadda Somaliland iyo ictiraafka la sheegayo iyo dowladnimada Somaliland sidii loogu jihayn lahaa ee waddo loo marin lahaa ayaanay wax tala ah ka lahayn. waana dhaliil aada u weyn anigu calaaqaadka Somaliland waanu iman doonaa, laakiin anigu tan doonayo inaan ku weydiiyo waxay tahay yani sibaa loo wada xidhiidha adduunku, sibay u wada xidhiidhaan, sibay u wada hadlaan, af diblomaasiyadeed baa jira. yani adiguna waad baratay waxaas oo dhan. brotocoolkii diblomaasnimada iyo siyaasadda sida adduunka ay u socoto wax ma ka fahansan yihin? aqoonsigu haynoo dambeeya waan u iman doonaa. ma fahansan yihin horta? fahamku waxay ku xidhan tahay sidaad ufaham way fahamsan yihiin, laakiin de haddaad si kasta ufahamsan tahay oo aanad meeshii xidhiidhkaa la marin lahaaba aanad jooginba waxba fahmaad fahamtaa kuu tari maayo. maaragtay dunidu kuma xidhiidho, maaragtay jaraa'idka kuma xidhiidho iyo maaragtay mediaha wax laysugu qoro kuma xidhiidhe. inta badan dunida waxa isku xidhaa waa nidaamka diplomatic relations bay yidhahdaan oo xidhiidhka rasmiga ee dowladaha udhexeeya waa ka through diplomacyga iyo xidhiidhka dowladaha ee safaaradaha iyo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo maaragtay official lineska waxa la yidhahdo. dee official lineskii iyo cilaaqaadkii nooca ahaa Somaliland imika uma furna because maamul la aqoonsan yahay oo maatan indhaha caalamka marka la eego waxay ka dhigan tahay Somaliland waddan aan jirin bay ka dhigan tahay. marka waddan aan jirinna cid cilaaqaad la yeelanaysaa ma jiro, no matter si kastood u fahamsan tahay si kastood u fahamsanayn. marka dee outsidekii ka joogaan nidaamkii caalamka banaankii ka joogaanba ee lagu xidhiidhi laaba. okay, markay halkaa ay marayso ee ah in waxa weeyaan calaaqaadkii dabaddaba banaankaba ay ka taagan tahay Somaliland oo sida ay Somaliland tahay dadka matalaya Somaliland kuwii hore ha noqdo waxaa tiri kuwii hore wareystay kuwan dambe laftooda ma rumaysan yihiin fikirkan aad sheegaysay ah calaaqaadka adduunka kuma jiraan mise ma aaminsana oo kuwa kolba safiirada soo diraya soo arkay inay safiirro xitaa u joogaan meelaha kale Yurub iyo meelaha kale Carabaha? dee iyagu way ogyihiin dee hortaas realityga qofku uu ku nool yahay si kastoo maaragtay u fudaydsado ama u yareeyo wuu samayn karaa, laakiin dee run ahaan way ogyihiin inaanay nidaamkii caalamiga ahaa qeyb ka ahayn oo aan la aqoonsanin way ogyihiin. sidaasoo ay tahay dee siyaasiyiinta Somaliland waa runtaa oo waxay yidhahdaan safiiraan magacawnay. mana aha runtii dee safiiro Somaliland dibadda uma joogaan. waa la odhan karaa haddii aada loo soo dhaweeyo oo kelmadda ugu munaasabsan waa la odhan karaa wakiil Somaliland waa la odhan karaa. dee wakiilada maaragtay Somaliland ay soo magacaabataana wakiilo maaragtay dowladihii kale cilaaqaad dawliya la samayn kara oo maaragtay diplomatic maaragtay relations establish garayn kara oo xidhiidh caalamiya abuuri kara oo maaragtay siyaasadda Somaliland iyo dhaqaalaha Somaliland iyo tacliinta iyo dhaqanka Somaliland promote garayn kara oo dowladaha kale xidhiidh noocaas la samayn kara ma aha. Somalilandna waa runtaa safiirray ugu yeedhaa, laakiin dee runtu safiirra ma aha, waxa weeyaan wakiilo. marka laga yimaado wakiiladaas tamartay leeyihiin iyo waxay qaban karaan iyo waxay qabtaan oo dood kale ah oo sida runtii ah wax aada iyo aada u gaaban ah, haddana dee safiirro ma aha, waxa weeyaan waa wakiilo. markaad anigu taan su-aasheedu waxa weeyaan mar haddii ay leeyihiinba kelmadda safiir dadkiina ay markasta leeyihiin safiir hebel safiir hebel safiir hebel waayo imika waxaanu naqaanaa dowladda Filistiin oo kale dee lama aqoonsana, laakiin wakiil bay tidhaahdaa ay safiir ma tidhaahda ilaa hadda. ama dowlado fara badan baa jira oo dee kelmado kale isticmaalo. imika masalan mucaaridka imika Suuriya oo kale safiir laguma magacaabo, waxaa la dhahdaa waxa weeyaan wakiil oo kale ayuu ku magacaaban yahay ama mumathil ayuu amba yani markaasi yani kii matalayay ayaa la dhahdaa.
maxaa u diiday inay somalilandu mar hadday og tahay inaanay cilaaqaadka dawliga ahaanay kaga jirin sidii la doonayay inay safiirada tidhaahdo halkaa ma kala hadasheen waxa ku jira ila dadkii ila waa la qaldayaa soo maaha hadhow waxa ka mid ah qofkina wuxuu ismooday inuu safiirba yahay isagoon safiir ahayn waxa ku jira uun maaragtay somaliland waxay tidhahdaa language somaliland ku hadasho siyaasiyiinteedu waa jira inagu aan is aqoonsano hadal la yidhahdaa jira marka mar haddaynu inagu is aqoonsano inaynu dowlad nahay waa inaynu maaragtay wixii kastay dowlad lahaan jirtay dee sheeganayn ku dhaqanabay iyagu saasay yidhahdaan markay justify garayn inaad arrintaa ka hadashaan laakiin arrin maaragtay macno leh oo macno usoo kordhinaysa ma ahay waxa weeyaan dadkii inay isdhigtaan oo ay moodaan inaanay nidaamkii dowladnimada ay doonayeen inuu dhammaystirmay inay dadkii u arkaan oo aan wax ka maqniba jirin oo mararka qaarkood aad dareemayso in dadweynuhuba taa dareensan yahay oo imika aanay wax ka maqniba jirin inay dowladdii dowlad buuraa ay tahay oo kale unbay keenaysaa oo khasaaraheeday dhinac ka leeday marka safiir lagu sheego qof aan safiir ahayn xataa inaga kuweena iska dhaafay dee maaragtay kuwa soo boqday ee caalamku soo dirtaan ayay somaliland siisaa definition ah safiirka soomaaliya iyo somaliland oo maaragtay dee qof kuu yimid oo warqadiisa ay ugu qoran tahay inuu safiirka soomaaliya yahay ama wakiilka qaramada midoobey soomaaliya iyo waraaqiisa ugu qoran tahay haddaad adigu tirahdo maaha matiida waxa tahay safiirka somaliland iyo soomaaliya wuxun bay ku muujinaysaa indhihii caalamka ku muujinaysaa inaad maaragtay nidaamka inaad fahamsanayn ayay ku muujinaysaa laakiin runtu saa maaha nidaamku way fahamsan yihiin ismaqiiq baa ku jira waxaan anigu ku tilmaamay ismaqiiq iyo ismuujin baa ku jira marka runtii baa la isu sheegay laakiin ha runtii ila marka runta qofku abaaro ayuu dhinaca kale uga gudbi karaa marka aad waxaad leedahay runtii ayaan la abaaray waxaynu isku akhrinaynaa marka qaarkood waa been weeyaan oo saxaafadda xitaa lafteedu ay sheegaysa leedahay safiirkii Soomaaliya iyo safiirkii Somaliland wax jira maaha okay haddii aan usoo noqdo masalan waxaad igu tiri waxaan tegay Hargeysa xisbiyadii oo dhan waan la kulmay aqoonyahankii waan la kulmay dowladda lafteedii waan la kulmay topiga adigu aad dooneysay waxay ahayd inaad bal ku saacido mar haddaad dee baaritaan samaysay aqoonsiga Somaliland bal sidii ay markaasi ay ula falgeli lahaayeen iyo qaabkay ka bilaabi lahaayeen maxaa kaaga soo baxay qof kastood la kulanto iyo amba xisbi amba mucaarad ha noqdo amba dowlad ha noqdo kusoo dhawo waxaa iga soo baxay arrin sad story baa iga soo baxday oo aada iyo aad runtii u foolxun markaad waxaan banaanka ka joogto ee ay maaragtay siyaasiyiinteenu hadlayaan idaacadaha ka hadlayaan ay marba madaarka kasoo degayaan ay dhoofayaan dooda ay sheegaan ee maaragtay arrinteeni meel fiican bay maraysaa Somaliland aqoonsigeedii waanu ku taagannahay waanu ka shaqaynaynaa international community-gii wuu inoo soo jeedaa ereyo kuwaas oo kale ah oo imika 20kii sano lasoo isticmaalayay oo markaad waxa banaanka ka joogto aad moodeyso sida ay yihiin aad u qaadanayso oo rajo ku gelinaya ayaan soo arkay inaan halna ka jirin halna kama jiro marka hadalka la soo koobay halkiisa loogu tago siyaasiyiinta Somaliland hadday tahay mucaarid iyo hadday tahay dowladaba oo dabcan dee kolba dowladnimada haysa gacanta ku haysa canaanta inta badan leh laakiin canaanta mucaaridkuna waxay ku leeyihiin wax taagan way ogyihiin iyo inaan maaragtay qorshe la hayo oo aqoonsi lagu doonayo aanu jirin nasiib darrada iyagana haysta waxa weeyaan qorshe ka dowladda ka duwan iyo iska hadalka faaruqa ah wax ka duwan oo maanta haddii ay meeshii yimaadaan ay la imanayaan office-kii ayaan iyaguna haynin marka intaad fadhiisisto aad tirahdo bal itaabsi 1 2 3 oo itaabsi oo itus aqoonsiga soo dhow halkuu soo marayaa halkeed u martay maxaad doontay strategy-gaad haystaan waa maxay waxa kuu soo baxaysa inaan halna ka jirin مثلا maanta Somaliland dee maalintii lagu dhawaaqay in Somaliland la soo celiyo go'aansiyadii lagu dhawaaqo la soo celiyay madaxbanaaneedii 1991 ilaa iyo maanta ama Siiraan ha noqoto ama Riyaal ha noqoto ama mid kale ha noqoto qorshe warqad ku qoran oo martay A4 ha noqoto size paper ha noqoto ku qoran la oranayo Somaliland waxaasay doonaysaa sidaasay u doonaysaa oo la dejiyo ma jiro marka waa kow aan taayir dhameeyo talabaad ilaa maanta 23 sano lama oran waxaynu doonayno aqoonsiga oo la'aantii aanay dowladnimo suurtagelay wax kasta oo la dhisay iyo wax kasta oo shacabku kusoo tacabeelay iyo maaragtay achievement kasta oo la sameeyay waxa halis ku haysa arrinta aqoonsi la'aanta marka waxaanaynu doonaynaa ilaa imka la gaari waayay sababta loo gaari waayo waa maxay maxageena wax ka khaldan yihiin ma cid kale wax ka khaldan yihiin ma labadoo la isku darayba maxaa choice aynu haysnaa maxaynu bedeli karnaa lama odhano ilaa imka la isma weydiin marka haddii aan ilaa markii maalintii hore la bilaabayna aan qorshe la sameyn la odhan waxaasaynu doonaynaa saasna waan ku doonaynaa ilaa maantana aan la sameynin qorshe dib wixii loogu eegayo la odhanayo maxaa inaga khaldan ama maxaa khaldan
dee waxay tusinaysaa in siyaasiyiinta waxaan wada ama maaragtay dowladihii hore ha noqoto ama kuwa imika jooga ha noqotee aanay waxaan ay sheegayaan dhab ka ahayn ayaa ii soo baxay aniga conclusion ah inaanay dhab ka ahayn ha marka haddaanay kaba dhab ahaynba maxaa ku kalifay inaanay ka dhab noqon ma isweydiisataa lafteeda taa waan isweydiiyey iyakana waan weydiiyey markaan la sheegsanaya siyaasiyiinta waan weydiiyey markaan leeyahay dhab ka ahayn macnihii uma jeedaan mana ka aha sida runta halkeeda loogu tagaayo dhab markaan leeyahay kama aha uma jeedaan macnihii dadka aynu lugayno oo aynu jabino oo maaragtay wixii halkaas u yaalaaye aynu doonayna halka loo marayo waynu garanaynaa laakiin yaynaan doonin ee aynu dadkeena jabino kama aha laakiin ta ay ka tahay ay canaanta ku leeyihin waxa weeye wixii intay u fadhiistaan ay qorshe dejiyaan oo ay deedna conclusion ay usoo baxo wixii waa la dooni karaa waana la gaari karaa halka ay halkaas u yaalaa ama waxaa lama gaari karo oo caqabadaas iyo taa iyo taasa hortaagan oo aan laga tallaabsan karin aan si kala u dhigno inay labadaa midun la yimaadaan bay ahayd markii ay arkeen inay caqabado waaweyn hortaagan yihiin halkii ay mujtamacoodii kusoo noqon lahayen ay odhan lahaayeen waxaa iyo waxaas ayna hortaagan ama caqabadaha iyo caqabadahaasaa jira international community markaanu la kulannay waxay nagu leeyihin saa iyo sidaas maxaynu yaal halkay ka odhan lahayen dadkoodii tale kusoo celin lahaayeen waxay go-aansadeen inaanu qofna hadlin oo caqabada jirta aan la address garayn isagoo koox waliba interestkeeda xagga siyaasadda iyo maaragtay siday kursiga u qaban lahayd ka kursiga hayaana siduu kursiga u haysan lahaa isagoo ilaalinaya ka kursiga usoo socdaana siduu kursiga u gaadhin lahaa isagoo ilaalinaya waxay go-aansadeen siyaasiyiinta somaliland inaanay ka hadlin caqabadaha ka hor yimi markay noqoto arrintii aqoonsiga oo ay noqoto arrin cid kale loo daayay maxaa ka hor yimi masalan waxaa ka hor yimi oo arrinta ugu weyn ee la taaban karaya meesha taalla waxa weeye ilaa iyo maalinta lagu dhawaaqay somaliland ilaa iyo maanta international community-ga oo ay carabta ku jirto oo galbeedku ku jiro oo ingiriiska inaynu joogna ku jiro siyaasiyiinta somaliland waxa lagu leeyahay laydin aqoonsan maayo waxaana laydinka doonayaa inaad soomaaliya oo ah wadankii aad kala baxayseen wax kusoo heshiisaan oo maaragtay aad isla meel dhigtaan inaad kala tegaysaan ama aada wada joogeysaan taasoo la helo mooyaane aqoonsi ma jiraba ayaa lagu yidhi marar badan idaacaddana waa laga sheegay in badanna waynu maqlay maxay kale marka taasaa ugu muhiimsan markay taasi ugu muhiimsan caqabadda ugu muhiimsan markay taasi ugu muhiimsan tahay dowladda axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu madaxweynaha ka yahay waxay bilowday inay wada hadal ay furto waana ku guuleysatay waxaanad ahayd kuwii aad iyo aad ugu waxa weeyaan yani aad iyo aad baad ugu bogaadisay qoraaladaada markii aad qoreysay miyaanad islahayn markaa dhinaca cadaalad darra ayaad ka tilmaamaysaa mar haddiiba intay qaladkii ay ogaadeen amaba carqaladii ay ogaadeen ay saxayaan oo ah horta bal in wada hadal la furo si looga wada gaadho in waxa weeyaan lagu heshiiyey inay ogolaato soomaaliya inay somaliland ay aqoonsato oo markaasi ay ka go-do su-aal fiican wey su-aal aada u fiican wey dowladda madaxweyne siiraanyo arrintaa waxay ka qaaday tallaabo aada iyo aada geesinimo leh oo aanan ka filayn markaan researchka sameynayay bay ahayd maaragtay still aan maaragtay beriyahaas maan jaamacadda dhameeyey markii aan arrintan go-aankeeda la gaadhay tallaabadii ugu weyneyd ee siyaasadda somaliland laga sameeyo ee maaragtay horumar ah ama wax la taaban kara ah ayay ahayd oo maaragtay baarlamaankii lasoo shiriyey la hordhigay mooshin ah waxaa laga dhaadhiciyey dadkii iyo siyaasaddii somaliland laga dhaadhiciyey inaan soomaaliya iska dhaaf wada hadale xitaa xaggeeda loo salaamo naqsan xaggeeda xitaa inaan maaragtay la eegin laakiin in maaragtay la dhahdo warmay arrintu saan maaha maaragtay arrintii mar haddii international community-gii ay halkaa ay noo dhaafi waayeen oo soomaaliya la hadla arrintan wadaan ma aqbalayna ee soomaaliya soo wada hadla oo wax kusoo heshiiya ay international community-gii noo dhaafi waayeen wada hadalkii aan ogolaano ayaa la keenay arrin maaragtay geesinimona way ahayd ma garanaysaa aada iyo aad baanu arrintaa u sheegay marar badan meelo badan ka sheegay wada in aadba tilmaamay waa yahay wada hadalkii waa la ogolaaday laakiin dhibaatadii waxay ka dhacday somaliland waxay ku dooday oo madaxweynuhuna baarlamaanka ka sheegay xisbiyada mucaaradkan ay meel walba ka sheegayaan wasiiradu meel walba ka sheegayaan somaliland arrinteedii iyo gooni isutaageedii waa lama taabtaan ayaa la yidhi waaye mar kale waxaa la yidhi oo dowladda somaliland ay ku dhawaaqday in wada hadalku aanu kuba saabsanaynba wada hadalka la gelayaaba aanu kuba saabsanayn somaliland kala tag iyo midnimo qodobkii ahaa kumaba saabsana baa la wada hadalkii waa hagaag dad badan baa aaminsan markaan weydiiyay maxaad saa u leedihiin waxay igu dhahan siyaasada somaliland waxaanu diidaynaa in maaragtay dadku nagu kaco
dee saasuna sax maaha marka aad bulsho hogaaminayso inaad maaragtay wax aan run ahayn u sheegto oo mucaaradkii been sheego oo dowladdii been sheegto oo kii hadlaaba uu been sheego dee waxay keenaysaa hadhow caqabad aanaad xallin karayn siyaasi haddaad tahay inaad keento ma garanaysaa marka inay runta u sheegaan dadka oo idhahdaan waxaan negotiationka ka gelayna iyo wada hadalka waa waxaa iyo waxaa maaragtay strategigaasaan wadanaa haddii strategigii koowaad uu shaqayn waayo ay dadkooda dib ugu soo noqdaan strategiga labaad ee aan uga gudbi karayna maarata xaaladda aan ku jirna aan ku shaqayn karayna waa taa iyo taa ay yidhahdaan saas bay ahayd laakiin may samayn waxay yidhahdeen arrintii somaliland madax banaanadeedii iyo goonisutaageedii waa non negotiable oo wax laga wada hadli karaba ma aha markaa tii waxay keentay inaanay miiskii wada hadalka wax ay ku doodaan oo maaragtay ay iibgeeyaan oo ay maaragtay ku dagaal galaan aanay keeninba waana ta keentay in ilaa imika wada hadalkii uu dhaafi waayo aan baarsiga iska kaashano informationka aynu shaargarayno maaragtay macaawanooyinka caalamku ina siiyo waxyaalaha sadaqada ee maaragtay caalamku usoo dawaro aynu qaybsano oo aan wax naflaba ahayn oo already ay dee qeybteeda somaliland helaysayba wada hadalka haddii la galay haddaan la gelinba wixii soomaali la siiyo somaliland way helaysayba qeybteeda waxyaala noocaasa inuu dhaafi waayo wada hadalkii keentay weeye imikana dowladda turkiga warkii ugu dambeeya waxaan ku hayaa oo aan soos laysku halayn karo ka helay oo maaragtay in dowladda turkigu ay joojisay wada hadalkii oo tiri naga joojiya waxaan waxba ka socon maayaan waad ogeyd shirkii ugu dambeeyey waxaa lagu heshiiyey 2 bilood gudahood in lagu dhiso guddi joogto oo wada hadalka sii wada turkina fadhigeedu yahay layskuma soo noqdo 90 cisho kadib 90 cisho kadib dee way dhammaadeen ilaa imika waxa laysugu soo noqon waayey qoladeenna waxay ku sheegeen in maaragtay dowladda soomaaliya tiri dib hana loogu dhigo laakiin arrintu saab maaha xagga soomaaliyana maaha xagga somalilandna maaha dowladda turkiga tiri waxaan waxba ka socon maayaan hala joojiyo oo conseenka inaan wada hadalkan kharash dama lagu bixin oo dadkan la isugu yeedhin xagga dowladda turkiga ka yimid marka anigu arrinta meesha taale waxa weeye dowladda turkiga markaa maxay doonaysaa inay maxay ka dan lahayd dowladda turkiga runtii ajendaha ah somaliland inay go'do iyadu maaragtay in badan waa yidhahdaan qoladeenu dowladda turkiga dhexdhexaad bay ka tahay laakiin dowladda turkiga lama haysto somaliland iyo soomaaliya inay kala go'aan ama ay kala baxaan okay anu markaa su-aashaan doonayna ku weydiiyo waxa weeyaan haddii masalan ba wada hadalkiiba la furay wada hadalkuna uu time qaadanayo sideedana markuu wada hadal furmo kolba waxbaa bilaabma oo waxbaa la galaa maxaad markaa u diidan tahay inaad leedahay yani waxba kama soo naasacdo oo wada hadalkii waa la furay laakiin wixii dambe wuxuu noqday wax masalan aan loo dul qaadan karin miyaan la oran karin yani miyaan la oran karin waa la furay wada hadalkii dadku waxay ahaayeen dad hore isu soo jiiray oo isu soo khilaafay oo dagaal uu soo dhex maray weliba yani waxa weeyaan somaliland iyadu mar kasta waxay ku andacoonaysa in diyaarada lagu qaraacayo oo dulmi badan loo geystay marka ay sidaa leedahay in si yaroo fududa loo heshiiyo way adagtahay sanaday qaadanaysaa time in la siiya miyaan ahayn wada hadalka oo la idhaahdo waxaan wax fudud ma aho markii horeba dhowr 20 sana la kala maqnaayo haddii la isuba yimi dee inta dooba ha qaadatay laakiin mar walba wuxuu lagu heshiin doonaa laakiin horta time ha la siiyo aragtidaas miyaanay jirin aragtidaas way jirtaa meeshana way ku jirtaa oo mar haddii wada hadal yimaado wada hadalku ma noqdo overnight habeen kuma soo baxo ma garanaysaa laakiin arrinta meeshii ka maqan waxa weeye wada hadalkii isagu ma aha in marka hore lagu heshiiyo waxa laga wada hadlayo iyo jihada wada hadalku u soconayo iyo wada hadalka faceka koowaad wejiga koowaad iyo ka labaad iyo ka saddexaad qayb siduu wada hadalku u kala gelayaan iyo inta badan arrimaha yaraada dib baa loo dhigtaa hadday doonto 5 sano kadibna ha loo ballamay in qorshe laga dejisto wada hadalka la waxaas aynu xilligaa ka hadalno saa qorshe loo dejiyo Soomaa tii baan dhicin tii marka maxaa sababa inaanay dhicin ta la doonaya wata de waxa u sababa sababta ugu weyn waxa weeye farsamo xumo iyo tiimamka wada hadalka ka qayb galaya labada dhinacba dhinac kaliya dhinac kale ee Soomaaliya iyaga problem maartay kooda iyo arrintooda iyaga arrin weyn uma taalo waxa weeyaan inay doodii Soomaaliya waa hamidoodo nagu soo biiro walaalayaal inay la taagan yihiin aqoonsigii Soomaali oo dhan oo ay Soomaaliya ku jirto inay dawladu yihiin iyagu gacanta ku hayaan marka iyaga mushkilad weyn ma haysato laakiin cidda ay ahayd inay strategy very clever oo aad u xariifa la yimaadaan oo qorshe habaysan oo laga soo shaqeeyay inta albaabka la isu xidho la yiraahdo maxaa inoo qodobka koowaad maxaa inoo qodobka labaad ay la yimaadaan waxay ahayd Somalilandna ilaa imika maantada aan kula hadlayaan ha ahaatee wax qorshe ah oo wada hadalkan uga dejisan ma jiro maalinta la yiraahdo hadalkii baa la tagayaa baa 5 nin oo maaragtay 5 beelood ka kala soo kala jeeda arrinta kaliya ay hubiyaan ay ka fikiraan marka hadalkan la tagay waxa weeyaan in dadka tagaya ay beelo kala duwan ka soo jeedaan
laakiin maxaa lala tegayaaba laisma weydiiyo musiibada ku saabsan in wax kastoo lasoo qaado beel lagu saleeyo taasunbaa maskaxdooda ku jirta laakiin arrintii ahayd war meesha waa la tegaya horta maxaa lala tegayaaba laakiin maxamed dee cidba isma weydiiso markaad imaka dhinaca ka eegto waaba la tegay wadahadalkii laakiin wax badan baa kasoo baxay soo maaha oo la odhan karo waa la taaban karaayo ay kamid tahay tii waxa weyan heshiiskii madaarada oo kale waxaa kasoo baxay iyada lafteeda in loo wada fadhiisto somaliland iyo soomaaliya sida ay somaliland leedahay yani waxyaalaha ay ku andacoonaysa somaliland waxaa kamid ah yani markii hore cid aanu la hadalna maanaan garan jirin laakiin maanta laba weji unbaa ishor fadhiista soomaaliya iyo somaliland waata ugu horeysa amba yani dheefta ugu weyn aanu ka helnay amba qodobka ugu muhiimsan ee aanu ku guuleysanay qodobka labaad madaaradii oo imika iyada lafteeda dee lagu wada jiro heshiiskiisii waxa kale ee muhiimka ah waxa weeyaan adduunkii oo dhan oo leh laba qaybood wax u kala qaata yani hadallo noocaasa ta afraad waa qodobada la tirinayo yani wixii moogta waa inay dadka laftiinu garawdaan idinkaa siyaasadda ku jira weliba weliba qodobeysan yihin ta afraad oo ah in loo cudurdaaro oo weliba yani laga bixiyo cudurdaar dhibkii loo geystay waqooyiga amba somaliland intaasoo dhanba ka garaabi maysa maxamed kusoo dhow maya walaal arrin dad ishayaa ma jiraan horta meeshii oo maaragtay laleeyahay mata hebel u garow meeshii ma jirto meeshii doonidan waynu wada saaranahay oo dan baa inaga wada dhexaysa anigu maaragtay dee maanta 40 sano waxba igama dhino oo intaasoo dhan meeshaan joogay ee dhiiggayga iyo dhacaankayga wa yaalay weeyaan meeshani waxa aan ka hadlayaana maaragtay inaan cid ugu garaabaan ama aan cid ugu garbiyo maahe waxa weeyaan in wax la gaadho oo maaragtay wax maaragtay dadka nacfi usoo geliyay mar kale aanay dadkani khasaare kale lugta la gelin ayaa aniga aad iyo aad muhiim iigu ah runtii taan iga hadlaynaysa aniga taa weeyaan haddii la yidhaahdo maaragtay waxyaalahaas waxbaa laga soo gaadho achievement baa kasoo baxay somaliland uga soo baxay khaasatan sidaad iminka sheegtay anigu waxaan leeyahay achievement somaliland uga soo baxay sida runtii marka loo hadlo eeg haddii la yidhaahdo matalan soomaaliya iyo soomaaliya is hor fadhiistay oo taasi achievement ah dee waa la odhan karaa qof wuu ku sheegi karaa soomaaliya iyo somaliland inay marun is hor fadhiisanayaan wax 20-kaasna waxa la lahaa is hor fadhiista oo maaragtay soomaaliya inaanay cid lala hadlaa ka jirin mar aanay waxbaba jirin mar ay somaliland diidaneed inay la kulanto marba wuxuun baa jiray laakiin macnii arrin achievement oo ay somaliland ku dadaalaysa in loo ogolaado oo iminka loo ogolaaday oo ay ku guuleysatay ma aha ee waxa weeyaan just wax gacanteena ku jiray bay ahayd inay soomaaliya wada hadasho intaaba caalamku wuxuu ku baaqayay bay ahayd haddii loo yimaado matalan arrinta hawada aad sheegtay tan imika soomaaliya iyo somaliland inay intaa yaraan ku dhamay walaal waad geli doontaa tan qodobka labaad qodobka hore si aanan uga bixin yani marka hore soomaaliya imika waxaa laleeyahay masalan jubbaland puntland yani qolo kastaba sideedaad moodaa inay yani dowlad u tahay marka dhinac ka eegto iyadoo iskuwada federaal yihiin laakiin maanta in ay soomaaliya cid matalaysa iyadoo jirto inay somaliland horfadhi saasaan uga jeedaya mee ku gartay somaliland hadday wada hadalka timaado intaan caalamku ka baryaayay lagu bushkaraynayay hadday somaliland aqbasho ciday dee la kulmaysay kolleyba ma ahayn jubbaland ama maaragtay beledweyneland ama maaragtay gobolada dee maanta gobol soomaaliya sii kala burburaysan weeyaan soomaalidii magaranaysaa soomaaliya itaaliya soomaaliya la odhan jiray oo sii kala burburaysan weeye maaragtay somaliland marnaba dee lamay kulmayntaa maaragtay ciday la kulmaysay somaliland hargeysa ciday la kulmaysay mar kastaba muqdisho bay noqonaysay hore iyo haddaba tan arrintan puntland ama jubbaland ima waxyaale u yaalay ma ahayn somaliland marnaba marka iyadoo taasi waa taa talabaad ku saabsan arrintii hawada dee waxyaalaha maaragtay dadka somaliland lagu maaragtay marin habaabinayo ee inta idaacadda lasoo hor fadhiisto laga sheegay ee la iskaga celceliyo un bay ka mid tahay soomaaliya iyadaa heshiis la gaadhay united nationka in maaragtay 2015 january ay maaragtay bisha january sanadka soo socda inay la soo wareegtay maamulkii hawada united nationkuna dowladda soomaaliya la saxeexday inay ku wareejinayaan maamulkii hawada somaliland tii ay kusoo heshiiyeen soomaaliya iyo united nationku ee ay somaliland in badan ka qaylinaysay ka cabanaysay ee ahayd maaragtay annagoo waxbana lagama weydiinay soomaaliya iyo united nationku ma arrintii wada gaadhay oo hawadii baanu xidhaynaa united nationku aan u diiday inay hargeysa yimaadaan ayuun bay somaliland soo ogolaatay imika arrintii ay soomaaliya iyo united nations kusoo heshiiyeen ayuun bay soomaaliya soo ogolaatay oo heshiiskii ay diidaneeda lahayd waa khalad oo waa sharci darro waxbana lagama weydiin ayuun bay ogolaatay soo saxeexday ee wax somaliland iyo maaragtay un ay soo wada gaadheen ma aha laba hawana ma jiraan waa hawadii soomaaliya un
xataa maaragtay la odhan maayo hawadii somalilan iyo soomaaliya ay ku duulayaan diyaaraduhu ama diyaaradaha hawada soomaaliya maraya odhan maayaan waxaan soo galnay intay code cusub ka hadlaan ma garanaysaa waxaan soo galnay hawadii soomaaliya iyo somalilan waa hawadii soomaaliya un united nationkuna taasoo kaliya un bay aqoonsan yihin qoladeena somalilanna wuxun bay soo aqbaleen heshiiskii soomaaliya ay kula wareegeysay hawada ee ay sanad ka hor la gashay united nationka ee ay somalilanna ka cabatay inta badan unbay soo aqbashay inay ku qanacsantahay ogoshay ay hirgelinayso waa intaasun wax kaleba ma jiraan saani wax kale u jirin sababtan maaha dee maxaa jira ii sheeg ma heshiisyadii inta la balbalaariyey ilaa iyo xitaa in xarunta ay noqoto Hargeysa in sidaa loo heshiiyey markii xitaa ay diideen wasiirkii imika la casilay ee wasiirkii hore ee cilmooge waxa weeyaan ay keentay inay Somaliland ay tiraahdo ciidamo soo fariisan karto madaarkayga arrimahaas oo dhan waxaad leedahay de way tiri walaal madaarka ma soo fariisan karto waana odhan kartaa Somaliland authority-ga dhulkeeda iyadaa leh marka haddii laakiin meel lagu qasbo la dhado heshiiska Soomaaliya ayaa saxiixaysa soo sidii un haddana ma odhanayso madaarada ciidamo soo fariisan karto deme way saxiixeen ba lagu qasbo way saxiixeen ba ilaa waa kuwii Turkiga tagay berigii weytee heshiiskan ay soo ogolaadeen ay iyaguna inay hirgelinayaan ay soo aqbaleen inay habi ku soo aqbaleen waa kii uu cilmooga la galay sanad ka hor United Nationka inay iyaguna soo galeen oo soo saxiixeen haddii maaragtay xafiis maamulka hawada sare ee Soomaaliya ay leeyihiin Hargeysa laga furana dee iyaga Hargeysa wuxuu bay u tahay qayb Soomaaliya kamid ah marka haddii Hargeysa laga furo iyo haddii Puntland laga furo iyo haddii maaragtay Ceergaabo laga furo iyo iyagu marka lagu eego indhaha Muqdisho ay ku eegayso iyo indhaha United Nationku ay ku eegayaan haddii Hargeysa laga furo office-ku iyagu dee wax maaragtay significant maaragtay oo different uma jirto marka adigu maxaad sulugsantay adigu xagga madaaradaas iyo heshiiska madaar iyo heshiiska hawada maxaad sulugsantay anigu waxaan sulugsanahay waxa weeye anigu khabiir xagga hawada ma ihi laakiin anigu arrintan sulugsanahay waxa weeyaan in dadkii loogu sheego oo maaragtay inta dadkii loo sheego information marin habaabina oo la yiraahdo laba dal oo maaragtay laba hawo kala labaynu nahay heshiis gooniya oo hawada Soomaaliya baynu la soo galay United Nations hadiiba si kala loo dhigo oo la yiraahdo waxa weeyaan wali lama kala bixin taana wad ogtahay cid kastana way ogtahay wali lama kala bixin adduunkuna ma aqoonsano Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin lacagtii iyo qarashkii hawada ku baxayay oo dhan hal la kala qaybsado oo inta ku guuleysteen maxaad u diidaysaa ma diidayo laakiin waa in sideeda dadka loogu sheego anigu arrintan dadka u sheego waxa weeye waa sax Soomaaliya magaca Soomaaliya wixii ku soo baxay waxbay ku leedahay waana taan mar walba kala hadla siyaasiyiinta inay wax ay ku leeyihiin doontaan imika inay tan hawada maamulkeeda qaybteedii qaadanayaan way ku saxan yihiin marka uu sheegitaanka qaabka dadka ugu sheegay marka laga yimaado qaabka dadka ugu sheegaya marka laga yimaado ilan siyaasiyiintan Ingiriiska joogaa markay Ciraaq ku weerarayeen si kale wax ugu sheegeen siyaasiyiinta oo dhan waa caynkaas oo dhaqan ay leeyihiin laakiin aniga waxbayga ma gelin sidii wax ugu sheegayaan laakiin soo ma aha guul weyn soo hooyeen adiga inay wax ka galaan weeyaan sababtoo ah haddii dadkii loogu sheego maaragtay in maaragtay nidaamkii hawada Soomaaliya uu qayb aanu ka ahayn oo wax gooniyo hawas gooniya ay tahay oo hawadeeni baynu maamulayna la yiraahdo marka hawadeeni leeyahay hawadii Somaliland taasna ma jirto waa hawadii Soomaaliya un weey marka anigu waxaan leeyahay halka ay arrinta ka tuugaysanayaan intay wax la soo galaan United Nationka iyo dawladda Soomaaliya ay wax kalena u sheegayaan dadka Somaliland ayaan leeyahay siday tahay waa inay ugu sheegaan saasa labada hawl yar talabaad waxa weeyaan taasoo kaliya ma wax kasta oo soconaya sida loo wado iyo sida dadka loogu sheego kala duwan matalan very simple waxa kamid ah baasaboorkii Soomaaliya ayaa dadkii waxa lagu khasbay inay garoowe iyo intay nool qaataan ay u doontaan baasaboorkii Soomaaliya oo Muqdisho u doontaan halkan waxa laga leeyahay baangareynay baasaboorka Soomaaliya anagu isticmaalayna baasaboorkii waxba kama jiraan laakiin dadkii wixii leen wax kale ma haystaan halkaas ay u doonanayaan United Nationku qandaraasyada ay bixinaysa iyo mashaariicda ay Soomaaliya ku horumarinayaan Somaliland way dalbataa African Development Bank laba bilood ka hor wuxuu ogolaaday in Somaliland uu ka taageero wasaaradda planning xagga maaragtay capacity building oo server xagga data iyo xogta lagu wariyo informationka populationka iyo ayaan u dhisaynaa bay yiraahdeen waxaana lagu soo bixiyay magaca Soomaaliya markii lagu soo bixiyay 3 sano ka wada shaqeynayeen wasaaradda planning iyo African Development Bank waa la ogolaaday maalintii heshiiskii la ogolaaday 3 sano laga wada shaqeynayay lagu dhawaaqay leeyahay waa la bixinayaa heshiiskaas oo magaca Soomaaliya lagu bixiyay Somaliland laga hirgelinayo dawladda Somaliland iyo wasaaradda planning way ka noqotay waxay tiri arrinta kuma jirno mar haddii la yidhi Soomaaliya soo maraya iyagoo ogaa marka horeba inuu Soomaaliya soo maraya marka
arrinta hadday noqoto United Nationka iyo hay-adaha developmentka qaabka wax looga qaadanayo ee African Development Bank loola xiriirayo oo magacii Soomaaliya ku socota marka waraaqaha iyo telefoonada lagu wada hadlayo laakiin markay dadku ogaadaan loonayo shaqo kuma lihin marada Soomaaliya soo marayo maamulkii hawada oo wixii ay Soomaaliya kula heshiisay United Nationka la soo ogolaanayo oo leeyahay hawadii Soomaaliya un baynu wada maamulaynaa resource-kiina waynu qaybsanaynaa laakiin marka Hargeysa la tago shirka jaraa'id lagu qabanayo hawadeeni baynu maamulaynaa shaqo kuma lihin marka nidaamka socdo oo dhan ee sida Somaliland politicskeeda loo maamulayo oo dhan ayaa ah hal gacanna waxbaa lagu wadaa gacanta kalena wax kala lagu wadaa marka waxaan leeyahay taasaa khasaare keenaysa sababtoo dadkiina waday marayaan siyaasiyiintii wadanka maamuleysay labadii qodob wada kale marayaan labadii qodob aynu dhameeyno qodobadii saddexaad aan sheegayay marka wadu qaraysa Soomaha inay iyadafteeda guul ka soo hooyeen ee ugu dambeeyay ahaa inay garowshiye laga bixiyay in waxa weeyaan dadkii dhibtu soo gaadhay in waxa weeyaan loo cudur daaro la yiraahdo waxa weeyaan sorry amba on ka xunay garowsho laga bixiyay markii koobaad ee hadalka la isugu yimid ee labada madaxweyne yimaadeen ay ahayd inta la bixiyo oo maaragtay aan ku canaano maaragtay arrinta inay dalbadaan oo maaragtay dadkan wixii gaadhay magaca Soomaaliya ku gaadhay in maaragtay apology laga bixiyo oo la aqoonsado apology kaliya in la aqoonsado inuu meesha humanitarian disaster uu ka dhacay oo crimes against humanity inay ahayd oo dawlad dadkeedii ku bahalowday oo magacii Soomaaliya dadkii ribahooda lagu cunay in maaragtay meel cad lagu qoro oo la sheego gaabis roundkii hore ee koobaad iyo kii labaad laga gaabiyay bay ahayd oo in badan aan ku canaanay siyaasiyiinta ومعارضي دولة way u dhamaayeen oo aan ku canaanay labadoodaba aakhirkiina maaragtay inkastoo language-kii la khafiifiyay oo la yidhi waxaynu wada cambaaraynaynaa haddaynu nahay Soomaaliya iyo Somaliland arrintaas ay yidhaahdeen haddaynu nahay Soomaaliya iyo Somaliland labadeena dhinac ee wada hadalka uga soo qayb galay waxaynu wada cambaaraynaynaa wixii uu sameeyay maamulkii militarigu ayuu ahaa statement-ku iyagu way cambaaraynayeen laakiin Soomaaliya ma ku soo darsatay waxa weeyaan waa aad qaybsi dambigii la qaybsanaya yani inagoo wada jira aynu wada cambaarayno waxay askartu sameeyeen dood saas ay u dhignayd laakiin anagu taan ku bushkareynay bariga waxay ahayd bariyii hore ee hadalku bilaabmayay inay Soomaaliya dadka magaca Soomaaliya ku shaqeynayeen kursigii Soomaaliyeed iyo dawladii Soomaaliyeed magaceeda ku fadhiya aniga walaalkiina ha noqdee in ay responsibility-ga qaataan ay yiraahdaan meesha wixii ka dhacay magaca Soomaaliyeed lagu sameeyay waanu qaadanaynaa responsibility-ga waanu qaadanay waanu ku xunoo cambaaraynaa inay yiraahdaan ay ahayd sidoo kale wixii maamulka militariga ee Soomaaliya uu u geystay goboladii kale Soomaaliyana ay maartay cambaarayaan markeeda ee aanay tan oo kaliya ma ahayn sababtoo waxa la yiraahdaa Soomaaliland oo kaliya kamay dhicin baa waa run Soomaaliland oo kaliya kamay dhicin laakiin de markan horta wixii laga hadlayay Soomaaliland bay ahayd in Soomaaliland teeda magacii Soomaaliya cidda ku fadhida ku hadlaysa ay ku hadasho oo ay cambaarayna u jeediso sidoo kale mas'uuliyadna qaato responsibility qaato legal responsibility iyo historic responsibility bay qaato la yiraahdo waxaas wixii magaca Soomaaliya lagu sameeyo atrocity waa magaranaysa taas bay ahayd taan u jeednaa anagu laakiin de imika wixin baa la soo yidhi marka hore canaanataan markii dambe ku guuleystay Soomaaliyada lafteeda waa guul weyn soo hoyday guul way soo hoyday laakiin de mid ka khafiifsan tii aan u jeednay bay ahayd oo macni labadeena wada jirnaa cambaarayna wixii askartii Soomaaliya maamuleysay ay sameeyeen ayaa cambaarayna un bay ahayd laakiin haddaan nay dawladii Soomaaliya wixii Soomaaliland lagu sameeyay ayaan cambaarayna ma ahayn oo maartay ereyada la qoraya micnahooda iyo meaning-kooda kala duwan yihiin garanaysa marka taas saas ku kala duwanaa in wadiga imika mucaaradka waxa tiri waxay dawladii dhaantaa ma jirto dawladdu uma soo jeedo inay aqoonsiga Soomaaliland wax ka qabato in aqoonsiga Soomaaliland marka la yahay waxba kama qabanaysana ma aha inay iyadoo hortaala inay waxba ka qaban weyday laakiin balaan baanay u sameyn sidan markasta hadalkaaga ka fahmayo adigu jaamacad baad soo dhigatay waxna waad qortay aqoonsiga inta aan ku celiyay mar labaad balaan uma sameeynin sidoo kale mucaaradka qolada dawladda dhaliilaya anaguna meeshaan doonaynaa kursiga u soo socdaana iyaguna qorshe uma hayaan ilaa hadda qorshe uma hayaan just iyaguna kun meesha fadhiyo dhaliilaan just kursiga uga kicistaan mooyaane iyaguna ma hayaan wax plan oo qorshe ah oo ay yiraahdaan waxa saas uu noqonayaa ama ku suurta galaya ama ma suurta galaya waxa ay ku yiraahdaan inagu doorto ma hayaan okay hadii aan ku u imaado marka mucaaradkii iyo dawladii wad saraacisay hadaan u imaado intiina midalan aqoonyahanka ah ee siyaasadahana jaamacadaha kaga baxay isla markaasina in wax ka qorqoray in aqoonsiga Soomaaliland maxaad idinku u haysaan isleedihiin waa lagaga qaban karaa oo action ah ma aha inaad meel wax ku qorqortaan ku soo dhow waa talo fiican wey waxa lagaga qaban karaa in dadka maartay ama wax bartay ama wax qoraa ama wax akhriyay intay doonaanba ha gaadho aqoontoodii qof kasta aqoonyahan baa la yiraahdaa oo bariyahan dambe kelmadaha micna beela bay kamid tahay oo in qof kasta aqoonyahan sheegto oo qof kasta doctor sheegto oo qof kasta PhD sheegto oo haddana wax alla waxay soo biyeynayaan iyo soo kordhinayaan aanay jirin
oo maaragtay noloshii dadka aan waxba laga bedeli karayn waa dhibaato weyn oo aada u taagan weeye marka laliishaana waa la wada qabaa marka anigu kolley waxaan ku talin lahaa dee sida gaarka ee privatekana aan ugula taliyey war inta isu timaadaan qolyihiina maaragtay siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ee waddanka u dhashay oo aqal la isu soo xidho in la yidhaahdo sideen wax u xalinaa maxaase caqabada in hor yaalla mushkiladu taa wey xagga arrimaha dibadda hadday xaggii arrimaha dibadda iyo mustaqbalkii somaliland sax sideen wax yeelnaa inay yidhahdaan haddii ay taa odhan lahaayeen ay isu iman lahaayeen oo ay isku kalsoonaan lahaayeen xal waa la heli lahaa weliba waxaa la heli lahaa hal xal in ka badan baa la heli lahaa aniga say ila tahay laakiin horta taa xalka ka horeeya waxa weeye in dee la garawsado in aanay sidan ay somaliland maanta ku socoto aanay aqoonsi ku gaadhin in arrintaa la aqoonsado oo la isla meel dhigo arrinta ugu weyne meesha taalla caqabadda ugu weyne meesha taalla taa wey haddii aqoon-yahanadii barhkood oo sida runtii wax la-aad looga xumaado ah iyo siyaasiyiintii qaarkood ama qaarkood yaanoo dhammaantood ay leeyihiin aqoonsigeeni uu soo dhaweeyo in yar baa ka hadhay dee xal lama raadin karo xataa even aqoonsiga ay sheegayaan war bal qorshe aad ku gaadhaysaan iyo halkuu yaalee loo socdaa waa xaggee laysma odhanayo laysma weydiinayo marka anigu waxaan odhan lahaa intaan la odhan in lagu degdegin arrintaas xalahe jihadaha loo guuro aan la odhan oo arrin muhiima ah horta ha la yidhaahdo waxaanaynu haysanno maxaa ka qaldan halkaynu imika taagana hadday aqoon-yahanadu taa ka wada hadlaan anigu waxaan aaminsan in xal la gaari karo in aqoon-yahanadu ka wada hadlaan laakiin action baa loo baahan yahay halkan aad imika joogtaa dad badanna waxaa laga yaabaa inay kula mid yihiin sida imika aad wax ula qabto yani inay kula qabaan fikirka aad sheegayso iyo ra'yiga aad sheegayso action ma raacisano idinku horta maiska bilowdeen intaas u timaadeen ma tirahdeen xaggee wax ka qaldan yihiin waanu iska bilownay wadahadal iyo maaragtay qorshe maaragtay strategies imika early stage joogo oo aan ku fiicnayn in t v-ga lagaga debate gareeyo waanu wadnaa kolley qolyaha siyaasiyiinta ee waddanka maamulayana waa usoo bandhigaynaa waa la fadhiisanaynaa de inay maaragtay sidan maaragtay qaabkan ah arrinteeni meel fiican bay maraysaa way soo dhowdahay oo keliya inama khaarajinayso wax soconayana ma aha waxyaalaha nasiib darrada ee jira waxaa ka mid a matalan somaliland maanta waxay achievement u sheeganaysaa oo ay u boodboodaysaa oo loo celebrate garaynayaa maaragtay magaalo yaroo England ku taalaana aqoonsatay dee wax macnihii aqoonsigii somaliland doonaysay iyo dowladnimadii iyo aspirationkeedii wax ka goynaya oo wax ka tarayana ma aha arrinta kale jirta waxa weeye t v-giina baan ka dhageystay 4 week ka hor iyadoo wareysanaysaan wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland oo magacii dowladdii somaliland ku hadlaya oo maaragtay wasiirku markuu hadlay dowladdii somaliland hadlaysa wey halkan inteedaan ka wareysan week ka hor dowladda Kenya soo saartay wasiirku wuxuu yidhi dowladda Kenya ka furanaysa maaragtay xafiis oo xafiis ka furanaysa muu xafiis bay inoo furaysaa buu Kenya oo maaragtay guulaha aan gaadhnay ka mid tahay buu mushkiladii jirta waxa weeye week ka hor bay dowladda Kenya ku dhawaaqday oo iyagoo ku dhawaaqaya uma u dhawaaqayn Somaliland wax ku saabsan oo gooniya dhawaaqay soo saareen wuxuu ahaa statement soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda nasiimuna 5 minutes warka markay soo saareen kadib baan ayaan anigu akhriyo anigoo just Google News iska akhriyay aan warka helay soo saareen qolada arrimaha dibadda ee Kenya waxay ka hadlayeen wuxuu ahaa progress ay sameysay wasaaradooda arrimaha dibadda oo diplomatic missions ay leeyihiin iyo xafiisyada ay dibadda ku leeyihiin danaha Kenya ka shaqeeya safaaradaha iyo qasuuliyadaha oo ay balaadhiyeen from Algeria laga soo bilaabo ilaa iyo Cuba laga gaaro koonfurta America iyo inta ka dhaxaysa ay ka sheekeynayaan safaarado iyo qasuuliyada ay ka fureen markaa waxay yidhahdeen Soomaaliya waxaan ka furanaynaa qasuuliyada 2 meelood waxay yidhahdeen Kismaayo iyo Hargeysa ayay magacaabeen wadaw fiirsadalkayga markaa safaarad maaha waa qasuuliyad bay ay ku magacaabeen qasuuliyada mid ay Kismaayo ka furayaan iyo mid ay Hargeysa ka furayaan ay ku soo dareen liiskii qasuuliyadaha ay ka furayaan caalamka oo dhan ay soo kordhiyeen safaaradoodina Muqdisho ay tagaysaa marka de in Hargeysa iyo Kismaayo isku mar la mention gareeyo oo labadaba qasuuliyad laga furayo oo wadan shisheeye ay qasuuliyad ka furanayso right wuxuun baabay soo kordhinaysaa waa laga yaabaa dadkii Kenya ku socday Soomaaliland ka tagay safaarada fiisaha Kenya soo ka doonayay inay hawl yaraato waa suurtagal oo khasaare ma soo kordhinayso waa waxtar laakiin in dowladda Somaliland ay ku darsato horumarkeeda iyo achievementka ay sameysay oo ay tiraahdo maaragtay Kenya xafiis inoo furaysa kelmaddaas uu isticmaalay wasiirku wuxuu yidhi Kenya ayaa xafiis inoo furaysa waana qasuuliyad wadan shisheeye leeyahay oo la mid ah ka furteen gobol ka mid ah Soomaaliya oo Kismaayo ah
oo u report garaynaysa oo hoos tegaysa safaaradda Okay. muqdisho ku taala haddii aan usoo marka noqono markaas in maaragtay waxyaalahaas oo kale inta achievement laga dhigo la yidhahdo aqoonsigeena nin yar buu soo jiraa dee waa sad story marka anagu waxaan doonaynaa haddaan nahay dadkii madax banaanaa ee maaragtay siyaasiyiinta somaliland joogta mucaarid iyo muxaafidba mucaaridka ku ahaa haddaanu nahay anigu waxaan doonaynaa la fadhiisano nahno war dadkii waad jibinaysaan oo maaragtay waxaad sheegaysaan wax run oo xaqiiqa maahe beentuna in run bay shaqaysaa waa lagu jabaaye wax macnihii dadkii ku badbaadi karo oo maaragtay xal noqon kara oo waxaan dhaama dee hala keeno haddii idaan keenayna dee iyadoo intan ka faahfaahsan intan aan iminka sheegayna waa dulxaadise ayaan dadkii la hortegay oon u sheegi saasaan doonaya anu nahno anagu okay tan imika aynu soo noqono waxaa jirta ayaama dhaweyto meelo badan oo kamida magaalooyinka magaalooyinka UK ayaa waxaa yani ay ka aqoonsadeen Somaliland yani dowlad deegaano fara badan oo mesela Sheffield ayaa kamid ahayd Bristolna iyadoo waxaabay mala ogolaatay in calan la taago oo yani nooc min soo dhaweyn oo kale aragtidaada Sheffieldna waad degan tahay kusoo dhow maxaad ka qabtay walaal waxa weeye iyada laftooda ka dayranaysaa ma ka dayrin maayo wada yamxeera arrimaha oo dhan ma wada yamxeera maaha ka dayrin wada yamxeera maaha yamxeerisku ma fiicno maaragtay dadka maaragtay dee horta rajada dadka haddii lagu dhisaayo been haadhe oo ay runtu yamxeero noqoto iyada qudheeda horta nasiib darra maaragtay wixii maaragtay run ahee maaragtay political strategy la taaban karayo oo ay kamid tahay go-aankii dee uu siraanya gaadhay baarlamaanka hadhcad uu intuu la tegay yidhi wixii aynu sheegaynay maaragtay sax maahe Soomaaliya waa inuu hadalaa la fadhiisano dee waaniga kuule maaragtay tallaabo maaragtay achievementkii ugu weynay political achievement ugu weynay laakiin taada badan laakiin dee haddii ay waajibtay in la raaciyo meeshii way soo galaysaa ma garanaysaa dhaqan ah waxa culture ah waxa develop garoobay maaragtay in hadba dadku wixii ay jecel yihiin loo sheego hadduu doono waxaasi been ba ha noqdee laakiin dee runtii waxa weeyaan beenta hadhow way kaa doonaysaa dadkii jebinaysaa haddii aan anigu doonayo inaan popular noqdo oo la jeclaado waan imika halkan saacadan aad siistay wada been waan ka sheegi karaa oo wax kasta waan odhan karaa halkana waa buur saliida halkana waa dahabkii halkana saliidii baa fadhido waan odhan karaa aynu soo noqono dowlad deegaanadii laakiin arrintaas anigu waxaan fahamsanahay inay dadka jebinayso siyaasiga inta badan intuu dadka dhagaysto wixii ay jecel yihiin dadku maaragtay hadba maalintaa ay hadal hayaan u sheegay ay dhahdo waxaasan yeelayaan politician maahe waa opportunistic baa la yidhaha political bookska marka la akhriyayo waa qof danaysta weeye markaa hadba dantiisa ku qumaysan maanta ka shaqaynaya marka tan dowlad deegaanka haddii inuu soo noqono waxa weeyaan tallaabo symbolic baa la yidhaha symbolic action baa la yidhahdaa oo maaragtay dowlad wuxun baa aqoonsada dowlad Sheffieldna dowlad maaha ma garanaysaa councilka Sheffield waxaa loo doortay inay nadaafadda iyo street lightingka iyo maaragtay horumarinta deegaanka Sheffield ka shaqeeyaan mandatekeedu waa intaa ma garanaysaa arrintan ay qaadeen waa symbolic action oo maaragtay sheegista maalintaa la sheegay iyo beberka lagu qoray wax dhaafsiisan ma aha ma garanaysaa tabiristana dee mabay suurtagelin oo idinkuna waad ogtihiin magaalooyin badan baad markii statementka aad sheegaysay ku sheegtay laakiin magaalada ma taasoo kale ahayd Bristol waa run calanka waa laga taagay calanka haddaad soo codsato waa laga taagay haddaad keligaa calan samaysato maanta Cabdiraxmaan Xadaano marka haddii aad dee xilli fiican kusoo qorto oo tiraahdo mudaharaadkaasaanu samaynaynaa shicaarkayaga iyo calaamadahayaga waa geynaynaa meesha way ku ogolaanayaan haddaad bukinka heshad early soo sheegato wax maaragtay maamulka Bristol ee councilku leeyihiin ama dowladda Ingiriisku ay shaqo ku leedahay ma aha ma garanaysaa marka dee dadku way dadaalayaan oo ama maaragtay council arrintooda ha ka soo dhaadhiciyeen ama mayor ha ka dhaadhiciyeen ama MP la soo doortay ha ka soo dhaadhiciyeen dadku way dadaalayaan laakiin inay dowladdu ka dhigto taa achievement oo ay wasiir soo dirto oo lacag cash inta shandada lagu soo qaado la soo diraa la yiraahdo aqoonsigii Sheffield ba budgetka lagu soo bixiyo lagu soo isbangareeyay oo maaragtay ilaa maantadan wali xafladii arrinta loo qabanayo way socdaan oo maaragtay xafladii aqoonsigii Sheffield ayaa hodheelada Hargeysa booking waa la kala waayay marka dee waxay u muuqanaysaa inoo ekaysiisay dad maaragtay desperate oo maaragtay wixii meel ka hadlaba maaragtay u arkaya wixii ay doonayeen oo maaragtay waan arkay dad badan oo dacaayeen oo leh laakiin waqtigina way naga dhamaaday su'aasha ugu dambeeyay ku weydiinaya waxay tahay meel qaldama marka ayaa gudcur baa la gudaya Soomaha meel aan loo ku habooneen baa laga raadinaya Soomaha aqoonsiga iyadoo ay dadaaleen ma dadkani
dowladda Somaliland baad ka hadlaysaa مع mise dadka شعب مع qurbaha شعب كلفتoodu ما shacabku waxa la gudboon iyaga waa siyaasiyiin maha shacabku dhaliil ma leh anigu shacabku way ammaanay xataa shacabka shafiil ka soo ololeeyay ee aqoonsiga maaragtay arrinta shafiil ka shaqeeyay way ku ammaanan yihiin ma aanu ka hadlmaayo anigu waan ammaanay ka hadlmaayo tanaysan laakiin hadday doonayaan inay ku guuleystaan miyaan ahayn inay iyada laftooda ka dhaadhiciyaan waxa weeyaan in koonfur la tago oo sida siyaasiyiinta ay ugu hortagayaan ay leeyihiin aqoonsada oo aanu go-no miyaan ahayn shacabkuna inay shacabka u tagaan si ay siyaasiyiintooda ugu yar uga dhaadhiciyaan may anigu arrintaa uma arko inay wax macnaa keenayso arrintan aqoonsigu arrin maaragtay shacab loo mudaharaaday iyo maaragtay meelo la warwareegay iyo wax ku imanaya ma aha waxa weeye waa strategic decision ay samayso dowlad foreign ah oo madax bannaan oo maaragtay madax bannaani sababta ay u sameynaysaana ay tahay personal interestkeeda ama national interestkeeda aan idhaahday personal maaha waa national interestkeeda ama danteeda qaran awgeed ayay England ama America ama cadan ama Sacuudiga u sameynayaan waqtigii baa iskuraya marka anigu waxaan oran lahaa telefoonama inaan siin caawa waayo waxaan ogahay inaad warkaagu aad u badan yahay laakiin su'aasha ugu dambaysan jooyanku waxay tahay safiiradan faraha badan leh meel kasta joogay lacagta faraha badan la siiyo loo soo diray waliba in tatamadhada ku iibinaysa Hargeysa iyo Burco iyo Berbera laga soo qaadayo lacagtooda ma is leedahay weyn ku fashilana mise waxaad leedahay maya safiir guul weyn bay keeneen ma aniga waxay la tahay inay arrintaas khalad tahay sababtoo ah safiirada marka la dirayo intay Somaliland wasaaradda arrimaha dibadda maaragtay dawladda guud ahaan intay isu timaado qorshe la dejiyay oo maaragtay strategic blueprint la qoray la yiri qorshahaas qayb ka tahay fulinayaan oo wakiilka halka aynu u dirano safiiriyaan oo wakiilka halka aynu u dirano qorshe lagu diray oo ay ku yimaadeen ma jiro oo macnaheedu dawladuhu safiiray diraan iyo wakiilada inaguna safiiraynu dirno title-ka safiirna aynu siino unbay ku yimaadeen ee wax qorshe ku yimid ma aha lacagta ku baxdaana lacag macna sameynaysa ma aha qaarkood baan la sheekaystay wakiilada badankooda saaxiibaan oo maxaad qabataan baan ku iri waxaan qabanaa ma jira bay yidhaahdeen just day markuu ama wasiir yimaada madaxweynaha iyo waan soo dhaweynaa bay yidhahdeen qaarkood iyagoo aan ka leexleexan ilaa waa saaxiibada ay qaarkood xitaa yidhahdeen bishii baanu mar waxyaalahaanu qabanay aan warbixin dirnaayo waxaas iyo waxaas aanu qabanay halkaasaanu tagnay laakiin maaragtay dee marar badan waxaanu qabanay ma jiro waxba ma qornaba xitaa ay yidhahdeen marka qaarkood dee iminkana qaarkood badankoodii waaba lasoo xidhayba oo albaabadaaba loo xidhay maba shaqeeyaanba badankooda marka anigu waxaan leeyahay waxba ma qabtaan waa la xidhay it's collapse weeyaan waa albaabada waa loo xidhay imka mid iyo laba unbaaba kasii jooga ma garanaysaa waxaan 4-5 ma gaaraan maan filaya marka anigu waxaan leeyahay haddii inta qorshe la sameeyo ay qorshahaas uu qorshe cad yahay oo la isku hadlayn karayo dad aqoon leh ay ka doodeen deedna qorshaha ay qayb ka tahay aan wakiiladaa dirano oo hawshaa iyo hawshaana aanu dirno waxa ha qabteen oo hala supervise gareeyo oo feedback ha sameeyeen waa sax hala diro dhaqaalena ha lagu bixiyo laakiin sida iminka ay ku yimaadeen waxa weeyaan dawladuhu safiirada dibadda u diraan aan u dirno bay ku yimaadeen wax qorshe ku yimi ma aha marka anigu halkaan ka galayaa halkaa aad baad u mahadsan tahay maxamed haaruun oo noocawa aad iyo aad u wareysanaynay waxay ahayd in telefoonada la furo laakiin maxamed haaruun waxa weeyaan warkiisu aad buu badan yahay aad baan idinku mahad celinayaa daawadayaal sida wanaagsan ee noo daawanayseen maxamed haaruun aad baad ugu mahadsan tahay idinkuna aad baa mahadsantihiin intaan ku kulmayna insha allah barnaamij kale waxaan idinkaga tegayaa anoo ah cabdiraxmaan cadaruush xogmaal kale iyo khamiista soo socota insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much.